mar haddaadanay la joogin noloshuba macaan male ile waad ka maqantay magaaladu iftiin male mid waa taas midna waa xamar bila xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bila marka anaga waxaa xariirta la daawado iftiinkii dayax bila aan dhaha marka sidoo ku yimid jaceylkooda jaceyl baa galay oo waa jaceyl hadda kadis igu noqdo aanan filayn inuu iimaan doono sababta uu yimidna waxaa waaye qof shalay jeclaa ama gabar shalay jeclay ay dhibaatoon jirtay ay xakaari jirtay ay rafaadi jirtay ana aan fahmi waayo oo garan waayo inaan wanaajiyo oo jaceylkeeda xushmeeyo oo jaceylkeeda soo dhaweeyo oo shalay xumeeyay oo iska buriyay oo xiriirkeeda diiday baan maanta u xiis maantana u xirxiranahay oo laanta noolaan karin qisada heesta waa sax waa qiso rasmi ah oo si rasmi ah u dhacday laakiin waa qiso markii ugu dambeysay laga badbaaday oo la isku xaal gartay oo heesihiisa aysan u xiiseenin muxuu yiri dayax may waa laga yaabaa way dhici kartaa maxay la dooqay leedahay ayadoo aniga aan qabo oo anigu fanaan ahay oo heeso baa laga yaabaa fanaan xaaskeygu waxaa waaye waxay jeceshahay heesaha Suldaan Seyraar taageerta fanaan Soomaali maxay waa nin fanaan ah waa fanaan qaali ah superstar ah aniga xitaa waan jecelahay heesiisa laakiin ayada markii laga farxiyo ahaan markii laga hadlaayo waa taageero weyn waa waliba waana loo ogyahay inaan loo ogeyn darnaan lahayn waa ogyahay asaga Suldaan Seyraar waa ogyahay dhigta waa ogyahay inay taageerto aad ma jirtaa hees ay ka jeceshay Suldaan Seyraar heesiisa oo aad ku aragtay inta badan iyadoo ama dhageysanaysa wallaahi inta ugu badan heesaha uu soo saaro ayada waa dooqeeda way jeceshahay hees walba Suldaan soo saaro jeceshay wallaahi waa saas un baa ku arkay way jeceshahay saas إلا هو سؤال مقطعي هسه أو سلطان سيرار صاروا ويجعشها ويدقيسته وأنا آمن سنتها وفنان ويجعشها واي لكن ومركز هسه إلا بهسان أي دقيسته أنتوا قبضن أو مقلع مدوا مر حدادني لجوجين نلا شوبا معن مالي إلا واد كمقتي مقالة دوفتين مالي مدوا تاس مدنا وحمر بلا حرير تلدا وديو افتينكي حمر بلا أكاسا مركا أنا حرير تلدا افتينكي ضيح بلا عندها مركا أنا سوي شيء وابسي تهيبا سيفي عن ضيح محوك يري والله هو سؤال صح fanka waa sax magax waa laga dhaxlaa sidoo kalena lacag waa laga dhaxlaa laakiin waa qofku u sameeysan iyo qofkii ku talagalay inuu ka sameeyo for example fanaaniinta Soomaalidu kama dhaxlaan fanaaniinta Soomaalidu waa laga yaabaa inay magac sameeyaan waa laga yaabaa inay magac weyn oo wanaagsan inay sameeyaan dadka oo dhan aqoonsadaan laakiin intooda badan markii ama maxaa la dhahay Ilaahay nagu ma keena dib ku dhaco ama maxaa la sheeg wax ka qaldoomaan mostly fanaaniinta Soomaalida waa maxaa la sheeg waa dadkooda markaas kala loo soo dhaxgalo oo wax loo weydiiyo sababta intaas keenaysan waxay tahay qofku intuu magaciisa taagan yahay iyo qofka siduu u sameeysan yahay ama hadduu la taliye leeyahay hadduu xaas wanaagsan leeyahay haddii isagu aqli badan yahay waa laga yaabaa maxaa yeelay dadkan hadda fanaaniinta ma yaro lacagta soo gasho sida caadiyanka lacagta fanaaniinta soo gasho fanaankii markaas heesaayo ma yaro lacagta soo gasho laakiin waa fanaan iyo aqligiisa iyo fanaaniinta si iyagu u kala fikir badan yihiin bay wax meel u kala dhigan karaan ay dhigi karaan berito markii wax iga qaldoomaan markii familkii wax ka qaldoomo markii maxaa yeelay fanaaniintu intooda badan shaqooyin kale ma qabtaan oo Soomaalida ah waa heesaan magac bay sameeyeen waxay yaqaaneen sida maslaxada looga heeso oo kaliya ma yaqaaneen sida shaqooyinka kale loo qabto markii laga reebo fanaaniinta aan maqlay inay America joogaan ayagoo shaqeeyaan iyo aan u maleynaa Europe iyagoo inay shaqeeyaan laakiin sida caadiyanka ee waxa caanka ee fanaaniinta Soomaalida ku yihiin waxay tahay inaanu shaqeyn laakiin ay heesaan marka intaas ay heesayaan oo xaraaradu heeso oo laga loo sacbinayo oo maxaa la ii sheegeen
la leeyahay hebel 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 intooda badan haddana dhibka ugu weyn oo jiro oo halkaasi waxaasi sababi karo anaa hadda kuu sheegayo waxa ugu weyn oo sababi karo fanaaniinta soomaalida boqolkiiba 99 iyo bar waa dad balwad leh balwada isticmaalaan jaadka sigaarka waxa marka qofka markuu balwad leeyahay maxaa la ishuusan waxba maxaa la isha fikir karin maxaa yeelay inta lacagta uu helo balwadiisu kaga fikiraya anigoo kala hadda balwad mali xitaa shiishad wiligay afkayga ma saarin waa ka dhaaran karaa marka waxa maxaa la isha anigoo kala bari aan u dhihi karo maxaa la isha waxbaan meel kala dhigan karaa waxaan u dhihi karo waxay tahay balwad mali maxaa yeelay fankan waxa aan lacag helo waxa laga yaabaa danahayga gaarka inaan ku dhameysto inta kalena haddii inay culays ugu noqoto laga yaabaa meel iska dhigo mar kale bal muuqaalka dayaxan ku laabto wallaahi horta way jiraan caqabada aan kala kulmay waxay tahay aniga waalidkay walaalahay arrin waxay ahayd ugub ku ah inaan aniga fanaan noqdo waxay arrin la yaab leh oo ceeb ah oo familka kii ugu dambeeyay awoowe ayeeyo ilaa kii ugu yaraa oo walaalka ahaa waxay ku noqotay arrin zaid ugub u ah oo fool xun in fanaan noqdo sida caadiyinkana hadda fanka hadda dhalinyaradeenna horta fiiriya hadda dhalinyaradeenna ahaan baa fankii jeclaatay laakiin 5 sano ka hor fanka waxa laga aaminsanaa waa la yaqaanay oo fanka qalad zaid ah laga aaminsanaa marka eedeynta ugu weyn waxay dul fuulayso hooyadeen oo qofkii soo wacday si fanaan ma waalatay maxaa cunuga hal xiro waa qaar waxay yiraahdeen hal xiro qaar waxay dhaheen because aniga marka xoogaha waana da'deeda xoogaha saan aad uga yareed oo hadda wixii 4 sano ka hor da'deeda si fiican zaid uga yareed intan marka qaar waxay yiraahdeen hal xiro qaar waxay yiraahdeen hal garaaco ul darteed ha uga haro fanka qof bumelo uu sameeyay qaar waxay yiraahdeen hal quraan saar qofka oo qof waa shay ma fiyo wallahi waxay qaar waa sixran yahay qofkan qof iyo ma asifana uu noqon karaa maxaa yeelay anaga familkeena wax ku cusub haddana aniga hooyaday xoogaa fantastic iska ah oo isda qof iska furfuran oo kaftan badan ah ayada markii waxaan dhihi jiray hooyo waxaan rabaa inaan fanaan noqdo kaas inta saan ii fiirsa xela waxaan codka xun codkaaga foolxumadiisaan ka noolaan lahaa see adin fanaan yaa ku dhagaysanaya markaas waxaan dhihi jiray hooyo joog haddaan fanaan noqdo oon hees soo qaado hadhow maa leedahay maxaa fanaan u noqota war maxaan horta ku dhahaa maxaan iska daayaa war waxaa fanaan noqon karta codba madiid itusay marka damdiri codkaaga horta balaa arkaya itus jaaniska marka ugu horreeyay oon helay oo kaga faa'iidaysto waxaa waaye codka intaan tusay aan weliba muuqaal tusay muuqaalkina muuqaal YouTube ku jiro ninka ma hooyo mar way xanaaqdaa markii carada isku badata marka waxaan dhahaa adaa fanaan noqo idhaahdo sababtoo adaa codkaaga tusi raahday haddana fanaanka waa noqday wassalaamu calaykum marka marxalado badan dhibaatooyin badan wax isku dayo badan oo iga yimid maxaa la isha familka gudihiisa markii dambe waxaa la isku raacay waxaa la yiri ninkan ka haraa la yiri waa ka haraan dhahay ma waxay waa xanuunsada marka fanaanka noqday zaida waa xanuunsada marka waxa quraan la isaal waxa leeyahay ka maxaa la isheeg iska daa waxaan fanka sababtoo ah already marka saa oo zaid oo xanuunsaday weligaas aan xanuunsanay marka jooji hadaan xoogaha waa soo baxdin nabraha la yiraahdaa zaid hadana korkii iga batay marka jiradii weyneed ka soo kacay marka waxa leeyahay waxaan waa dadkii oo dhan afka kugu qabteen marka iska daaliir waxaan wax wanaagsan inay waa aragtimo aha waa hees Soomaa codkaaga waa dhimismo habeen iska fariis iska joog hay okay markaan wax badan intaanan joogin wixiina waa ii macaadeen oo maxaa yeelay waxaan arkay aniga adduunka dadka waxaan ahaa dabiicadeeda ka sameysnaan jirtay oo inay caan ka noqdaan jecel for example meesha markaan mar hadda dhibaan ku qabo horta been sheegay waa ka gungaaray sababtoo hadda waxaan dhib aniga laba waa jeclahay midna waa necbaa midna waa jeclahay midaan jeclahay waxa waaye adduunka waxaan jeclahay inaan lugu eego inaan lugeeyo oo maanta dhan aan socdo oo maanta dhan meel kasta wareego badda inaan kaligay soo aado intaan gaari ama mooto soo qaadan lahaa waxaan jeclaa inaan iska soo baxo iska soo lugeeyo taas horta waa gabay ilaa aan sokor igu dhicin aan taagana sababtoo ah ma lugeyn karo taas dhibaatadaas waa igu dhacday koo labo
inaan markaan wadada maraayo marka waxyaabaha aan jeclaan kuu sheegaa waxaan jeclaa waxay aad markaan caanka noqdo markaan wadada maraayo hay dayax haa ma fiicanta alxamdulilah in la dhaho oo dadka markaa magaalada maraayo oo aan noqdo waaw war waa lagu yaqaanaa dadaa ku salaamaya inaan dhaho intaas aan caanimada biska doonayo laakiin hadda waxaa waaye intaa baxdo wada dan intaa qabato ma gooyn kartid maxaa yeelay waxaa lagaa rabaa qancin wiilaa ku arkaayo gabaraa ku arkayso qof kasta inaad sawir la gasho qof kasta inaad qancisid maxaa yeelay aniga qofaan taageer maanta hadduu iga soo horbaxo waa kala lacshoomaama aniga dayaxa xataa laga yaabo qofaan taageero markaan arko inaan ka foqo ma laga yaabo waxaan jeclahay inaan qofkaas ama sawir la galo ama xasuus ka reebto ama aniga horta waa